كايا هي بيارها فيلم سومالد قار oo haystaan ujeedadii loo sameeyay inuu jecel yahay laakiin ka duwan macnaha filmkan uu wato film ay Soomaalida qaar aad u xiiseyn jireen xilliga hore haddaba waxaan la wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqo inuu gaaro filmkan balse intaan u gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa inaad channel ku soo biirto muuqaalka dadka ee shalaag inoo saar si share gareey la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal filmkan كايا هي بيارها macnaha waxa weeyaan kalima jecel ba laakiin qofka filmkan min bilow ilaa dhamaad fiirsada oo kaliya ayaa ogaan kara filmkan inuu jecel yahay inuusan jecel ahayn haddii aan aniga ku soo koobo filmkan macna ahaan ma film jecel ah laakiin sheekaan waa film jecel ah xitaa directorka filmkan ninka lagu magacaabo Moral Mohani uguma talagalin filmkan inuu jecel uga hadlo laakiin waxa uu talagalay inuu ku dhiirigeliyo dhalinyarada ha ahaato rag iyo dumarba ee wax baranaya inay marka hore noloshooda horumar ay ka gaaraan kadib jecel u soo jeestaan aakhirka filmkan markuu dhamaado ayuuba kaga hadlayaa waxa uu leeyahay jecelku ma wadnaha nolosha yacni haddii aad wax jeclaato waa noolaa kartaa haddii aad wax jeclaanin waa noolaa kartaa sidoo kale anaga manini wayuu leeyahay dad cadow ku ama ka soo horjeedo in jecel la sameeyo jecel waa sameey kartaa laakiin muhiimaddu waxa weeyaan marka hore in riyada waalidkaaga aad rumaysaa oo noloshaada horumar aad ka gaartaa kadib jecel sameey waa inta uu leeyahay directorka lagu magacaabo Moral Mohani markaani haddaan eegno xogta uu gaarka filmkan waxa uu soo baxay 22 Maarch 2022 waxa hogaamiyalkooda Aftab Amisha Patel JK Sharif Ashish Fadir ninka lagu magacaabo inta waxaad u taqaanay jirayal kala dhowra waxa agaasima ka ama director ninka lagu magacaabo Moral Mohani filmkan waxa la saaray in ka badan 190 tiyaatar lacag lagu kharash gareeyay waa 5.50 karoor in ka badan ama in ku dhow $700 Mareykanka waxa uu keenay 7.58 karoor waa in ku dhow $900 Mareykanka natiijo aan average ayuu noqday ama film guuleystay filmkan waa filmkii 25aad ee lacag ugu badnaa soo xareeyay sanadii 2002 markaani haddaan eegno xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay hal iyo laba ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal xaqiiqadu horeysa filmkan waxa leeyahay waa filmka kaliya iskala soo muuqdeen JK Sharif iyo sidoo kale Aftab sidoo kale waa isla filmka kaliya isla sameeyeen ama iskala soo muuqdeen Amisha Patel oo filmka natiijadka ay JK Sharif xaqiiqooyinka waxa qayb ka filmkan marka hore booska gabadha lagu magacaabo Amisha Patel waxa la rabay in loo dhiibo Kareena Kapoor laakiin way iska diiday sababtan lama shaacin xaqiiqooyinka waxa qayb ka ah filmkan waxa la leeyahay sheekadiisa waxa laga soo miguriyay film Tamil ama dhankaas koonfurta kaas oo lagu magacaabo Love Today filmkaas waxa uu soo baxay sanadii 1997 xaqiiqooyinka ugu dambeeyay filmkan kala wadaagi doona waxa weeyaan jilaaga lagu magacaabo Ashish Fadir Soomaalida inta uu yaqaanaan iyo atrishada caanka Amisha Patel filmkan waa filmkii labaad ee iskala soo muuqdaan ka hor filmkan waxa iskala soo muuqdaan filmkii caanka ay Kauna Bari oo sanadii 2000 soo baxay xaqiiqada ugu dambeysay anaga jeebkeen aan uga dari doono muuqaalkan waxa weeyaan filmkan Kaayahi Biyarhi filmkii jimcada hore aan ka hadlay ee KPRna wajay waxa director ama agaasima ka wada ah ninka lagu magacaabo Moral Mohani Roy haddaba intaas ayaan ku soo gabagabiyay muuqaalkayga fadlan haddaad ka heshay muuqaalka like noo saar janaalka dadku cusubtaan ugu soo biir waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena